waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideysano madaxweynihii hore ee Puntland haddana senator ah sanad termkii hore ahaa Cabdiraxmaan Faroole wuxuu caadaystay gobolka bari inuu cunsureeyo ilaa iyo termkii intii xilka hayay dhibaatada u weyn intii ka dhacday gobolka bari ama Puntland waxay ahayd xilliga Faroole haddaan soo xusuusto dagaalada u waaweyn waxay dhaceen xilliga Faroole dagaalkii Garsoor Gaalkacyo dagaalkii Puntland ka dhacay Cagaaran dagaalkii Kudmo dagaalkii Igdays boosaata waxa la diiwaan galay 130 qof in lagu dilay afartii sano xilka hayay waa xilligii ugu xumaa ee soo mara Puntland waa xilligii Faroole markuu wuxuu caadaystay inuu wax ka sheego degmada Boosaaso hadda kor wuxuu yiri waa dhadhaab malab dhadhaab ka galay hadda waad u jeedeen khudbadiisa qardho wuxuu yiri waa arkay boqor burhaan iyo shan la joogta waxaan maqli jiray hal la faysatay hadaag taagan waxaas wax la aqbali karo maaha senator Faroole horta daana waa joogaa xilli waqti badan waa soo noolaa inuu kas u leeyahay oo ku talagal waxaan u leeyahay oo inda adag uu sameeyo iyo xishood darro iyo inuu xilliga gaaray dadku ay gaboobi jireen la fariisan jamaanu kala garan waay waxa uu ku hadlayaa wax macquul ah maaha waxa kamid hadda arintii qardhood maruu reer qardhood la hadlaayay hoos buu daadigay wuxuu yiri waa toliyay wixii Ismaan Maxamuud oo soo heshiiyay madaxweynaha Puntland saad ogtihiin Puntland baad doortay xildhibaanada Puntland baad doortay Ismaan Maxamuud ma dooran kelmadaasina kelmad